مسؤوليinta xisbiga udub ee gobolka Togdheer ayaa maanta shir jirayd ay ku qabteen hotel Shamaxle ee magaalada Burco kuwaas oo si faahfaahsan uga hadlay ku galida doorashada golaha deegaanka ee diiwaan gelinta kal hor ka qabsoontay Somaliland kuwaas oo sheegay inay mowqif adag ay ka taagan yihiin inay diiwaan gelintaasi lagu galo doorashada waxaana xubnahan tilmaameen in diiwaan gelintan hore oo khaladaad badan lahayd ay tahay in la bedelo doorashada lagu galaana ay tahay mil khalkhal iyo dib u dhac ku keeni karta masiirka ummadda Somaliland waxaana ugu horeyn shirkani jirayd ka hadlay gudoomiyaha xisbiga udub ee gobolka Togdheer ayaan la cismaan waxaana uu sheegay in muhiimadda shirkoodin jirayd uu yahay mid taageero mugla ay ku siinayaan madaxda asxaabta mucaaradka ah ee u ciidiyo udub go'aanka ay ka qaateen in diiwaan gelinta hore lagu galo doorashada waxaana mas'arayaal la sheegay in diiwaan gelintani ay tahay mid muddadeedii dhamaatay xilligan ay jiraan dad u baahan in la diiwaan geliyo heesta kale waxa uu gudoomiyuhu intii uu ku guda jiray shirkiisan jirayd uu ku dhaliilay xukuumadda Somaliland inay jiraan dib u dhacyo ka yimi dhanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo qorshe la'aanta uu sheegay inay haysato dhanka waxbarashada kaas oo tilmaamay in imtixaanaadkii shahaadiga ay noqdeen kuwa fashilmay waa sidoo hadalka u dhigay dadweynaha ka dhaadhicinaynaa ku celcelinaynaa diiwaan gelintaas laguma geli karo sifa loogu geli karaana ma jirto annana kuma geli doono sinaba uguma geli doono diiwaan gelinta wax food ah sababta oo dalkayaga iyo dadkayaga ayaan u turaynaa udubna waxa weeye lagalama xisaabtami jirin gobolkan Somaliland oo kaliya waxa la oran karaa dawladda geeska Afrika dhacay dalka wax fara badan waxaan oran karaa meelaha qaar kood 5% ba hoos u dhacay waxa kamid ah siyaasadii dibadda oo ay Soomaaliya maanta ku meelanahay waxa kamid ah xuduudihii aanu sugnay oo maanta aynaan joogin waxa kamid ah waxbarashadeeni oo inaga oo aan haysanin qol aynu wax qufle oo albaab leh oo kabar haysan oo khaanad haysan oo qasnad haysan imtixaanadeeni xilligii caynka aynu ahayn bixi waayay oo baxay oo fashilmay oo waxbarashadeeni maanta fashil ay Saciid Cali Axmed oo ah xogayaha xisbiga udub ee gobolka Togdheer ayaa sheegay in mar walba xisbigoodu taagan yahay wax sixida balse uu sheegay in haddii lagu galo diiwaan gelintaasi ay wax weyn ka bedeli doonaan haykalka dawladnimo ee Somaliland tago u soo jeediyo xukuumadda Somaliland inay samayso diiwaan in deetiyoona sidoo socoto waxa weeye sida gudoomiyuhu sheegay wax far badan oo midnimo la jiray diiwaan gelintii hormidnimo badan bay lahayd waxa ay dad badan oo kaar badan haystay baa jiray dad intii kacay baa jiray xaq u leh in doorashada ay qaybtooda ka galaan oo qaataan marka anagu waxaan leenahay diiwaan gelin hal cusub hal sameeyo diiwaan gelin cusub dadka hal loo sameeyo oo hal la qabto oo doorasho wanaagsan oo xaq oo xalaal ah inagu dhacdo gelin waxa kale oo iyaguna shirkani jirayd ka hadlay xubnaha xisbiga udub ee gobolka Togdheer kuwaas oo ay kamid ahaayeen madaxa wacyigelinta ee xisbiga udub ee gobolka Togdheer Aadan Cawade madaxa arrimaha bulshada Cali Aw Cigaal iyo xubno kale oo badan dhamaantoodna waxa isku raaceen inay marnaba diyaar u ahayn xisbigooda udub inay diiwaan gelintii hore lagu galo doorasho iyagoo ugu baaqay in komishanka qaranka doorashooyinka ay gutaan waajibaadkooda qaran ugu dambeyntii shirkan jirayd ee mas'uuliyiintu ay ku soo bandhigayeen xilli labada xisbi mucaarad ee ka jira Somaliland oo cudi udub si weyn u qaadeen diiwaan gelintii hore ee dhacday Somaliland kuwaas oo ku tilmaamay sababo badan awgeed mid sharci darra lagu galo Cabsaaq Farax Abdullaahi Cabsaaq Nakruma shabakada caalamiga ah ee Burco online magaalada Burco.